ciidamada booliska Somaliland ayaa hirtay waabariye saaka ku guuleystay in ay toogtaan libaax ka baxsaday beerta lagu xanaaneeyay calan waraacde ee magaalada Hargeysa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Xalay todobadii barkii markay ahayd baan noo soo sheegay baalkaas inuu soo dhacay gabadhna wax yeelay muddo 7 mirir gudahooda ayaan ku soo gaarnay goobtii ilaa xalay waan ku jiray baadidoonkiisa insha Allah ta'ala taliya ciidankuna waajibkii buu nasiiyay ciidannimo raadiyana uu ka sheegay idaacada shantii barkii subaxnimo ayaanu baalkii helay inkastoo deenu soo hujuumay haddana waanu ka xoog roonaanay baalkaas sidaas ayuu ku dhintay waana shaqadii caadiga ahayd ee ciidanku qaban lahaa qayb kamida oo waliba yar ma aha wax weyn ma aha waa baal xayawaan oo soo dhacay oo shacabku ka badbaadinay waana shaqadii aanu shacabka u haynay weeyaan waxana libaaxaasi waqtigiisa lagu gubay meel u dhow beertaasi arkan libaaxa ayaa xalay jiif iyo joogba u diiday bulshada ku nool caasimadda Hargeysa maadaama waxyeello u geysto bulshada waxaana uu dhaawac gaarsiiyay haweeney Oromo ah oo jaar la ahayd xirada lagu dhaqo libaaxaasi gabadha marwadii wax ka soo baxday xamaamka halkan wax yaari gaari duqaana dabeeto markuu libaaxu soo baxay gaari duqaanku isku soo loodiyay dabeeto gabadhii buu qabtay dabeeto halkan ayuu la soo galay ciidanka ayaa ka gariday xabad dhaawacay markii xabadii ku dhacdo dhaawac noqday ayuu baxsaday dabeeto sidoo baxsaday godkii uu xalay ku dhacay ayuu la saa ku jiray godka hadaanu ku dhici lahayn ummad fara badan u galaafan la godka hadaanu ku dhici lahayn ummad fara badan u galaafan la qaar kamida bulshada dariska la ah xirada lagu xanaaneeyo libaaxyada ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Somaliland ka dalbaday in laga raro goobtaasi lagu hayo libaaxyada maadaama ararkan ay yihiin dad qaada Yusuf oo la jaara in waraacde meeshan uu libaaxyada ku xareystay wax weeyaan markasta anaga waxa naga haysata werwer iyo dib iyo dhibaato weyn sanad kastana qof buu cunaa waxaan u aragnaa qofka cunaa waa qof dumar haddaan dumarnahay in rag ka dhiidhiin inaanu ka dhiidhiyeen oo dumarkoo kale ay ka dhiidhiyeen marka rag wax weyn nooga qaban lahayn hadii uu maxay ahayd caruur yar yar halkan waa meesh waxay leedahay kubad meel lagu ciyaaro kubadda meesha lagu ciyaar baa noogu ciyaara ciyaalka haduu ku soo baxo mid ka reebi maayo habeenkii haduu soo sokolo noo soo goosto waxaan ku yiri jaarkii baan leenahay dhibaato weyn baan ku qabnaa dawladda waxaan leenahay aan laga qabto oo maxay hay'adaha xukuumaddu ha ka taliso oo aan laga raro oo laga fogeeyo baan leenahay hadii kale insha Allah bidmillaahi kariim inaan ka qaxano magaalada ugu qanin maadaama libax laga qaban kari weydeen ku ay timi habeenkii xalay ma seexan ma suxuuran sidii baanu caruurtii may kaadi tagin dadkii waaweynaa booga ku kaajay waa baalkana naga raatay ay garanaysan ninka noogu yeedha xaafadana may timaan baa la yiraahdaa libaax walaal habeenku soo baxo waanu baqanaa guriyaha kama soo baxno marka dambe waxa waa been xumu soo bixin habeenku soo baxay habeenku aanu soo bixin cidba kala garanayso dareenkiinu seebo noqday hal naga saaro beerta laga saaro xaafadda laga dhex saaro koolayaal la geey cidla oo jooga bilaadan joogin dareenkaygu waxa weeye baalkan wadnaanu farta ku haynaa magaalada uhdiibu ku jira dhalinyarada habeenkii markay naga baxdo waxaan ku ma seexano marka waxa weeye in laga raro oo xaafadda laga raro oo laga saaro ayaanu doonaynaa haddaan haweenahay hana laga qabto bahalka Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa.